السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاميلي سو دواذا وولاشين فاتوش channel كداونيسين وفاتوش channel كان عصب لوgu talagalay familka iyo de in lagu kala warqaato cuntooyinka fikradaha adduunka maasha Allah saa hadaba kor ku soo aragteen maanta waxaan rabnaa waxaan la share garoonaynaa iskuulka my first open house aan lahayn waxyaabaha aan jeclahay dee waalidiinta already waxay sameeyeen way sameeyeen qofkii aan sameyn iyo fikradaha iyo faatuush family waxa ay sameeyeen markii ilmaha iskuulka u bilaabayaan waxa laga yaabaa in aad wax un ka faa'iidid soo subscribe no saar share like ta kulli yani waa xagaaga ما شاء الله ما أنتوا حنسكت يعني the whole family بحويا only لبا قف لإسكول هذا مركب وحوا حافظة وحا شرعي جيدا هادي قف أكتكتد ولا أوينانو مركب سكول already كل ويود أبين مفهد مركب سكول كمانتي عادينا لبلا بسانولا إنك استوعب عدنا كصدح سنة بري سكول أنجين ربولي جلاس كيس أسيجل الجارين لكن لبدا وينا وحي بلاويان kindergarten iyo first grade marka maasha Allah bisinkan ku furnay maasha Allah maantay marka iskuulka tagno because open house ka waaye waxa laga yaabaa dadka qaarkood open house kana iska yareysatid oo yani maybe qaar waalidiinta maasha Allah way wada tagaan laakiin open house ka waa very important ma fahantu waa muhiim because waxaad ku soo ogaanaysaa wax kasta waxa kale oo ka sii daran oo ku jeclahay cunugaaga classroom-kii soo arkaya classroom-ki markuu soo arko macallimiintii soo baranaya meeshu galaaskiisa soo ogaanaya meesha magaciisa ugu qoran soo ogaanaya wixii dhan yani fiiriya qof guri inta la iska soo geliyo dalaq iska soo dhamaanti first day school iyo qof intuu taga maanta open house-ka dadka welcome to school la dhahay way kala duwan yihiin ma fahan aad bay u kala duwan yihiin waxa la cunuga familiar wixii ku noqdo marka maasha Allah sidoo kale waxa jirta inaad macallimiinta su'aalo soo weydiisid anaka kala hadda anaka meel kale aan ka imaana ka soo guurnay yani iskuulka koronihii sanadka dhan waxaan ku aadnay maxaa la dhihi jiray online iskuulaadkan hadda nagu cusubin waa new macallimiin wax kasta inaan soo barano waa ma fahan so marka very important you know ahead open house ka inaan tagno su'aalo soo weydiino wixii nagala rabay soo aragno dadkan aan soo barano maasha Allah waxa way wixii warqado nagala rabay soo qorno waxaas oo dhan maaragta ayaan u imaanay maasha Allah waana muhiim u tahay ilmaha يعني أنا أيك حتى مسكحين وديارس أترايا ما أنت وما أنت معلمين تللو كل مية أشرح دي سكول ملان باك we don't have to bag وحسنا قادنا لكن عاد أشرح دي مسكحين عنق سود ديار ونقضينا مرك ما شاء الله مش ذيك أسكع عيارين just office كواعي سؤالا ويديني sidoo kale waxay jirta markii aad macalinka u tagtid waxa rabaa inaad wax kasta aad tira listiga isi because waxa fiican listiga in lagu siiyo you know for example cunugaaga first grade markuu aaday waa inaad tira isi wixii aan soo gadan lahaa wixii cunugaaga u baahan yahay si xataa extra wax kale oo siyaada ah ugu soo gadid because باقي سألعبت الجورة ألعاب معلمين اللوجينية جرا وحيابه وحجرا إكسترا عنو أرتس وحيابه مكي المو السماينة يعني يبادي وحيابات قرشات قبل بحة ومعلمين تقلبتي أنا كسو أوجاتد هدي عاد يعني سيني سيد because for example هذا عادي عادات كلا بحين على جيابه لكن عادي كانوا بحين كرتا قرشات كاس سكولات كوي كل دوين سكول بوحبة لقوليه كان مركا وحياله وحجرا عنو جا عاونه يو أد هوس صاد أنا سي أوجاتد listiga macalinka ka qaadatid wax kasta ka qaadatid waxa cunugaaga u baahan midda kale ugu muhiimsan oo very very important ah oo badanaa especially haddii aan been sheegayo يعني فاتوشي no that's not true أديك المهن بدن كت هويين يرموجي باجو ده كم تحضران يعني المو لسه شقي سكول وان أسو ترتبي مع هويين وان راعي waxa ugu badan oo dadka la weydiiyo waxay tahay cunuga boorsidiisa cunuga alaabtu qaado wallahi bilaa beenini ma sheega waxyaalaha qaarkood aan ku soo arki jiray waxay ahaan jireen aad waxaan jeclaan lahaa community-gan inaan iska wada deeno because
cunugaaga waa inaa ku kontaroolshid baagiisa baaga waa inaa cunuga ku kontaroolshid cunugaaga alaab waxaa jirta la rabo baaga inuu kusoo rito waa inaa ugu soo ridaa cunuga baaga alaabta markaa ugu soo ridid gala guriga markuu imaado ilmaha intay ilmo kale la dhashay guriga u jooga baagii la qabto wixii ku jira warqadaa la jeexjeexo wixii bugaaga la jeexjeexo wixii dhan biri cunugii oo empty bag inaa u dhiibto hooma yacni akhlaaqiyan ayaa waxaa rabaa inaa u barto cunugaaga markuu iskuulka ka imaado markuu weynaado hada wuuba weynaado kaas waa mastiba marka uu yar yahay inaa kusii tarbiyeysid baagiisa cidna inaysa taaban cunug kale inuusa baagiisa taaban asaga hoomaaga ugu jira markaad isla samaysiin oo ka taxadirtiin cunuga meel uu saarta alaabta baaga yaan la taaban soomaaliya gabdho saas ka taxadira waxaa jirta inta macalimiinku soo siiyaan alaab way dhacda 100% anaa kaa huba inta macalimiin cunugaaga buug laga soo siiyo weliba ilmaha waaweyn aan ku arki jiro badana library-ga inta buug laga soo siiyo maamadii guriga ceeb waay inta la weydiiyo la yidhaha cunugaan maalin kasta buugtiisa xaguu kusoo dhumiya waa library book waa lagugu soo charge karayna haddana fiiri ilmaha markay first grade yihiin kindergarten yihiin waxaa kusoo dhaqtid ayuu hadhowna ku dhaqmaya very be careful ka taxadira buugaag markuu soo qaato waa inaa ogaataa noodka cunugaaga buug gurig meeshiisa boorsada lagugu soo rido waa inaa ogaataa communicationka ugu badan waxa ay ka dhacdaa waxa ay ka dhex dhacdaa cunuga boorsadiisa because macalimadda markay rabto inaad la kulantid wax markii jira cunuga nood loo soo dhiibaa cunugii aan ku tarbiyaysnay inuu baagiisa xifdiyo ma arkaysid because markuu soo galo shanta walaalaha sisterta kale guriga joogay meel buu baagi bataq ku siinaa ay ka teekeer garaynaa wixii dhan la jeexjeexa nood baana arkin waxaana hooyooyin yar ma ogi marka insha Allah adiga yeesan extra work ugu noqonin marka cunuga uu yar yahay ka soo taxadir waxa dhaad hooy kindergarten bri school markaa ku bilowdo ana baag yinish u samaysaa aad bartaa baagiisa meel u yeeshaa uu surto isla fiiriya before the night ka intuu seexanin isla waxeeyo isla fiiriya markaa ka dhamaysid waa inuu yaqaanaa markuu soo galo iyo markaa homework ka dhamaysid meel uu surto wallahi aad ayaan u jeclaan jiray Janice inaan ku helo afaarahaas uga hadla ma fahantaa haddana baa kana meeshaan aan uga hadlayaa please ka taxadara ilmaha yararka cunugaaga ugu hayasin hooyooyinkeena badanaa way xiyasaan ilmaha markay cunuga intay qaateen heer star ay geenay bri school ay geenay waxay ku leedahay waxaan uu yariya muxuu soo barana aabihi ka sii daran because ma fahansiisana ina generationka jaamacadda ka bixi doona insha Allah inaa soo dhisaysid maxaa ku soo dhisaysaa hadaa marka hore ka soo halaysay tarbiyada waxa waa hadhow cunugii difaato ku noqonaysaa iskuulkii ma focus garaynaya ma dhigan karo because markii horeba waxbarashadiisa haday quraan ahaan lahayd haday iskuul ahaan lahayd kaamuusan arkin inay very very important inay tahay because hadduu ka arki lahaa biidna ilaahay kariim ilmahaaga waxbaa ka soo bixi lahaa dee wixii ilaahay qoro meesheeda waay laakiin waxaa la rabaa adiga inaadan eersan bilaa taxadar la-aan aad samaysay iyo wax aad samayn weyso cunugaaga beri inuu eersado oo very simple ah baagiisa u ilaalisid aad bartid waxbarashada waxay qiimaha leedahay akhlaaqiyan buu iskuulka hadhow u dhismaya ciil baa ay qaban jiray marka intaan hooyo raaca damcayna caawiye la yiraahdo xaguu cunugaaga qalimaanta iskuulka loo keeno iyo alaabta loogu soo rido baag xaguu ku dhumiyaa cunugaaga maalin kasta baag empty wata cunugaaga alaabtii library-ga ee la siiyay buugaagtii uu daynsaday maxaa la dhihi jiray ma uusan keenin waa maqan yihiin that's very shame waay iska taxadar ay wallahi markaan u aqriyo aniga xataa kuwa yayinishka bri iskuul markay ahaan jireen la iisoo siin jiray waxaan samayn jiray waan qaadi jiray meel baan dhigi jiray ma fahan meel baan dhigaa markaan u aqriyo meel baan ku ridaa taariikhda aan celinayno waa noo qoranta meel aan ugu qoraa celi taariikhda sidaynaawi buug la jeexjeexay waxaasna يعني waa laga taxadara baby waaye ilmo waaye degano mess up waxbay haleynaya laakiin maxaan rabaa inaad yani didaashid inta tabartaa insha Allah excited baan ku nahay sanadkan iskuulka inaan bilowno I think hooyooyin badan iyo aabooyin badanna way nala mid yihiin because anaka gurigaan kusoo daalnay 1 year baan gurigii iPad ku dhiganayeen ilmahayga waxay jeceliina dadka arkaan inay dadka la interact gareeyaan macallimiinta arkaan oo saaxiibada arkaan oo dad wax bartaan oo wax la ilmo wax la dhigtaan insha Allah marka we are very excited anaka waa inii soo duceynayna idinkuna noo soo duceey in insha Allah Ilaahay wax shar uusan naga tusin anaka dhan shar kasto nooga imaan lahayd Ilaahay uu naga qabto waxa waa ilmaheena Ilaahay nooga dhigo kuwa diinta barta kuwa maadiga barta insha Allah oo ilmo fiican oo mustaqbalna kuwa soo dhisa
ilaahay hanaga dhibidna taasa ilaahay ka rajaynayna waxaan u dadaalayna waxaas waa insha Allah hooyinka dhan aan isku soo duceyno maasha Allah aan isku soo gurno anigu meeshaas in kaga soo duceyna insha Allah happy school year ma dhijir schoolkii waa bilowday xagga quraanka iyo wax kasta